tahay ugana sii gudbi doona Damala Xagare iskuna tagi doona Carmale meesha la yiraahdo xagga ceelbow dabadeedna ku jebin doona kadibna aanu ku noqon doono magaaladii Barameed annagoo dhulka lagu sheegayo in baabuur mareysay ilaa xalay tuuga garablaha oo gaadasho ah oo aanan ka dulqaadan doonin dalka iyagana aan difaacayno una dhimanayno cid kalena aanay soo hawaysan karin cidda ku soo duushay oo duulaanka ku ah guriga iyagana waxaanu leenahay guryahooda qabtaan hadday qaban waayaanna waxa weeye waxa ku dhacay iyaga unbaa ka jawaabi doona cidna nooma caga jooleynayso cidna kaba gabanayno cidaan wax ka qarsanaynaana ma jirto maanta waa dalkayagii iyo dadkayagii iyo diintayadii difaaca iyagaan u dhimanaynaa annagoo warsangeli ah waxaanu ku hulbadirinaynaa tan cid allaahi ciddii isku soo daydana waxa weeye ninku hadduu dalkiisa ku dagaalamayo difaaciisa iyo diintiisana waa helu janno hadduu cararo oo isagoo sii socda xabadu dhabarka ka dhacdona waa helu naar nin kastoo warsangeli ama dal ha jooga ama dibad ha jooga waxaanu faraynaa dalkooda inay ku dhintaan oo aaminaan oo cadowga xun oo foosha xun oo saameeyey oo dalkoodii ka soo kaco dalkaaga doonaya inay qabsadaan inaanay fadhi idinku iman waxa weeye qori buu sitaa qori baa sidataa hal waxa weeye yaan laynoo digdiglayn yaan laynoo bacbaclayn isku tashi baa la yidhahdaa allahu akbar waxaan ka samaynaynaa carro warsangeli ciidan la yidhahdaa isku tashi dal iyo dibadna ku xidhan cid kastana oo ka qaadanaysa qayb libaax waa soo dhowaynaynaa dalka iyaga ciddii danaynaysana waa soo dhowaynaynaa ciddii cadow ku ah ama kula socota musuq maasuq ama wax gaara ka doonaysaan difaaca diyaaru ahayna raalli kama noqon doono warmiyaynu raalli ka nahay allahu akbar warsangeli ha guulaysto soomaaliya ha noolaato allahu akbar wabillahi tawfiiq